macalinka oo dhiga farta ardada bara waxa uu ka rabo erayada ama waa far qurxan macalinka tajwiidka dhiga ma wuxuu ka rabaa ardayga inuu baro tajwiidka cadki inuu ku saaro qawaacidii oo tiraahdo xuruuf alqalqalati aad tira xuruuf alqalqala maxaa waa xuruufta maxaa la dhihi jiray ii sheega hal xarafoo soo koobi jiray jiddu ma ahayd udma jiddan arday intaasu ku yidhi intaas marka ma tajwiid baa ayaa akhri suuradana lagu yihi qalqalo samee ma ada sameyn waxba ma ada baran waxaan aada uga naxay markaan arkay arday badan oo jaamacadaheena dhigta ya oo aan aqoon jihooyinka afarta ah jaamacadu waa waxaan ka sheekeynayaa arday badan iska daa dugsiye hoose dhexeeye arday dhigata on afarta jiha aqoon iskoolka laakiin waa kusoo baraboosin haddaad tiraahdo qor jihooyinka afarta ah waa la qorayay udkul jihaati arbaca laakiin banaanka haddii la geeyo ardayga uusa sheegi karin bari iyo galbeed waqooyi iyo koonfur uusa sheegi karin muxuu bartay horta ma jirtaa mise ma jirto amaan keligay iska hadlayaa gaardi keligay amaan wadaa aan cidna ila wadin ya arda ka dhegayso jihada afarta jiho waa sameeyey laakiin afarta jiho ma yaqaan jaamacadahan ku aragay ardada noocaas hadday soo qalin jabiyaan xaggee maxay qabanayaan hadday ummadda usoo baxaan maxay qabanayaan haddii aan ugu soo daray dhaqan kalena ka waran waxyaalaha qodobka kale oo muhiimka waxaa weeye ardaygan waxaan baraynaa waa dhaqan wanaagsan attitude baan baraynaa attitude suluuk itijaahaad dhaqankaan ka barra inaan ka bedelno wadankeena maanta waxuu u baahan yahay waa garan karnaa dhaqamada wanaagsan u baahana kasoo bilow ardaygan inuu barto ixtiraam casharkay ku jirtaa ixtiraam wax wadaag in wax la wadaago wax qaybsi xataa inaan wax qaybsanoo kala badnaan karno wax ma dhibayso waa qaybsana waa kala badnaan karnaa wax ma dhibayso mararka qaar laakiin waxaan baraynaa valuega iyo qiyamkaan baraynaa waxaan baraynaa runta sidqiga runtaan baraynaa ka waran hadduu ku arko adigoo barxadda maraya bareegi oo lagu soo wacay xaggee joogtaa waxaan soo marayaa isgoys hebel wuu fiiriye mise isgoyskuma yaalla meeshaan ardaygaas weligaa haddaad u akriso run baa fiican makaa yeelayaa maxaa keena dadkeenu dadka u badanaado qof hadduu hadlaayo inuu dad badan oo annaga naga mida inay been ku sheegaan telefoonka dhaqan u arkay waayo qof ma lagu jiraa ka mida oo casharkaa bixiyey telefoonada haddii aad qofka ka cabsanayso ama ka daahsan tahay weli been ha loo sheega wax dhahay ma lagu jiraa ma jiraa laakiin waa waxaan aragnay haddii lagu weydiiyo xaggee soo maraysaa alaabtina aad la soo daahday waa soo dhawo isgoys hebel xaggee isgoyskee wey qofkaas inaad qancisaa rabta oo runtii meeday haddii ardayga khalad yar uu galo cirka ula boodno ani waxaan dhaha ababiye oo aan noqdo qaali wax yaru qalad gale muxuu kaa qaadanaa markii qalad la galo saan haddaan la isu kululayn wax ma socon karaan wuu kaa bartay magaaladuu soo tegey yaa hadli yaa waxaa sameeyey hadal bari amus keligi tasliimo kaa bartay hadhow magaaladu tegey keli telisuu noqday waxaa leedahay wallahi meeshaan muhiim keli teliyaa ka jira dictator annagaa barayne qiyamka aan barayna soo ma ahayn isku tanaasul fasala anaa ku jira waxaa idhi dhulku waa kubad ninkaas galaas uu ku jiro fadhiye waay abukar galaas uu fadhiyey ardayga wuxuu igu yidhi macalino beenta ardada ka daa beenta ardada ka daa waxaa idhi ma waxaa u baahan tahay aayad qur-aan iyo daliil ma u baahan tahay ha macalin raalli aho aayad qur-aan u baahanahay iga raalli aho haddii aadan marka hore la boodo ani ma ay leedahay aniga cashar waa laga baxay cashar waa aniga iyo adiga mise ma aha cashar waa laga baxay aniga arrinta waa halowday laakiin ardayga haddaa bartay dulqaadkaa bartay isku tanaasulkaa bartay magaalada hadii la taga hadhow qiyamkaas wuu wataa qofku inuusan qof isku dhararin war isku dhararaan mayne ii dhacma aan kuu dhaco baranaya yaana isku dhararaan mayne ii dhacma aan kuu dhaco laakiin maya rag waa iska riixid ya waa raasamaal maxaa dhihi jirteen inaba ade waa raasamaal miya markuu meeshu ku fiican yahay waa meeshiis laakiin meel kasta maha
ardaygaas qiyamka wax aan baranay iyo valuega aan barayno runtii annaga la rabaa barno beenta inuu ka cararo arday kasta oo soo daaha oo galaas iskool ka soo daaha haddii la weydiiyo maxaa ku soo daahday inta badan maxay dhahaan baabuura hallaabi soo mahay baabuurka ay soo daahiyey qof dhahaya waddadaa xidhay anaa soo daaha khaladkaas lahaa ma jiraa allow yaa weydiiyo macalimiinta oo yidhaahdo macallin soo daahay haddii la weydiiyo inteena badan maxaa odhanaynaa jidka tay ahayd kan waxaana laga baranaya kaas waa attitude laga baranaya kaas waa ardayda arday maalin inta markaa soo gasho adoo soo daahay ardayda magacooda daaratay maanta waan soo daahay raalli ahaado shalay kii soo daaha waa celin jirtay kii soo daaha waa canaanin jirtay adaa soo daahay baro maxaad bartay ictiraaf bilkhata'i fadiila in aad ictiraafto khaladka fadli weeye wax fiican waay khaladkaaga ictiraafto maho in markuu yidhaha shay hebel waa kaa qaldan yihiin wala aada waa iga saxanta adaa iga saxan meeshan waa qalda adaa iga saxan xataa haddii ay berri kugu soo dhacdo ku bilow berri xisadda waxaad tidhahdaa meel heblo oo shalay aan dhignay ardaygaas ayaa iga saxsanaa waxaa bartay in la qaldami karo khaladkana la qiran karo soo ma aanan baray ardadeeni waxaan barnay qiyam fiican wanaagsan xataa maadooyinka chemistryga physicska kulli waxay leeyihiin xisaabta iyo waxay leeyihiin qiimo laga barto value laga bartay maadooyinka dhan baa leh macallin chemistry dhigaya wuxuu dhigayaa macallin chemistryga sodium chloride buu dhigaya macallin chemistry waxaa laga rabaa sodium chloride macallinka dhigay inuu kasoo bixiyo akhlaaq iyo dhaqan wanaagsan see laga soo bixina sodium bir weeye markii biyaha lagu rido bul sodium hydroxide samaysmaayo chlorine waa sun labadooda la isku dara maxaa waa cusbo ma tahay cusbo waxtar le waay annaga intaan maan ka daranahay intii wax sun ah iyo wax dad goomaan lagu jira adigana wax ay gubin anna ku samayn maayo maalina waxaan saarna gaari baabuura nin iga soo horjeeday kuwa iga soo horjeesto sigaar la soo baxa buf waa buufi iyo baa naga deysaa iri xora ah kula waxaan iri biif ah la soo baxa waa wataaye tii sunti waxaan wataaye sunti waxaan wataa cayayaanka ma la soo baxa anna aan buufiye may bas waa qiyamka baarta hadda ma jiraan umeynaa badana annaga ma aragno waagi hore waa arki jirnaan umeynaa waa annaga ardada ahayd macallin galaaska joogo sigaar ku cabaaya ama ardayga dhaha iisoo shid hadda ma jira laakiin waa wax xil ka weyn ama sii saaranbe oo ardayga inay nabad ku wada noolaadaan inay wax wadaagaan inay muhiima biyaha fiiriya biyo hydrogen H2 soo maaha H2O hydrogentin goormaan biyo helnaa oxygen yaa iskale labadii oxygen hydrogena qaadatay hydrogenna maxay leedahay ma ogashihiin laba hoo hal si may looma dhamo may waa la kala badan yahay biyo ma la helay kalama helin biyaa la helaya laakiin markii ay qola ogolaatay in laga bato waa ilaahay subxana wa taala ka dhigay saan ka dhigay qiyamaan ka baran karnaa value waxaan dhahay fal walba xeerka saddexaad ee Newton wuxuu oranayaa fal walba wuxuu leeyahay fal lid ku ah every action has reaction badano likulli fi'lin lahu radd fi'l ilmaheeni intaas barnay shibaan ka dhihi marna hadhow labaad dirirtay maxaa dhacay jugu isyaana jugaasi xeerka Newton saddexaad ah isticmaal ka war xeerka saddexaad isticmaalaan maalinta xeerka saddexaad dhigana waa in akhlaaqda saxnaa soo maaha war xeerka saddexaad ha u isticmaalina xeerka saddexaad Newton wuxuu oranayaa qaniya kaa fujiso saxan ku gud sahan ku gud oo nolol saas kuma socoto xeerka hada iska macallinka physics dhiga xeerkii bas uu dhigay waana iska daayay ilmihi waa is garaacay waa inaan barnaa xeerka ka saxnaa markii akhlaaqda iyo dhaqanka noqdo wasaas ma xeerku saas xeerku ma jugu maaha maada kasta keena oo maadooyin ka mida ama
waxaan u baahanahay maadooyinka dhexdooda inaan ka bixino qiim maxaa u meelata midii akhlaaq iyo qiim iyada dhanba ahba maadadaas maadooyinka maado aan laga heli ma jiro maalinta aad dhigayno runta beenta ixtiraamka waalid la ixtiraamo macallin la ixtiraamo isu tulqaato labada arday haddii wax dhex maraan is ixtiraamaan in la isdhegaysto dadku isdhegaystaan casharaday ku wada jirtaa in la isdhegaysto qofka in waqti la siiyo in qaladkiisa la qaato macallinkii waxa waay haddaad waataan dhehayni ardayga hadduu qalad sameeyo oo aad tiraahdo maamule qaladka anaa ku haya asoo sameynaya arkaayi hadi murabbiyaa tahay intaa wax xallin karto xalli macallinkan murabbiyaa tahay ababiyaa tahay adig soo maa saas haddaan galaaska la iga bixin ardaygan xiso socon mayso banaanka la iga bixiyo banaanka igee aniga saan kuma shaqayn adaaba sii xanaaqo xafiiskaaba tagtaba oo sii xanaaqday ardaygaasaa galaad ku jira oo ma xalisatay mushkiladda ardayga marka wuxuu baranaa haddii wax la xalinayo in saa in la sameeyo cunug yaraa hooyis la socota meel wuxuu ku arkay dhinac lagu gadaayo hooyo ii gad markuuma gadaayo dhulka isku garaacay waa is oohiyey waa loo gaday wuxuu bartay waxaa la isu gadaa marka dhulka laisu garaaca wax la isu gadaa haddaan hooyo saa la yeelinna wax kuu gadi mayso ayadana waxay maaragtay casharkaasi siisa cunugeeda marka qiyamka iyo valuega la rabo in la maaragtay la isticmaalo waa inay maadada kasoo dhex baxdaa waxaan soo dhignay practice xaqiiqooyin concepts mafhuumka ardayga waxaa ku dhisan yihiin applicationka ama skill xirfad inuu qofku leeyahay maado kasta xirfadeeda akhlaaq iyo dhaqan inuu leeyahay problem solving mushkilad xallin war mushkiladaad xalliso waa inaa mushkiladda baraasida loo xaliyo mithaalka hadda aan sheegaynay halka shay aad taqaano wax badan ku xaliso shayga aad taqaano wax badan ku xaliso maado kasta waxay leedahay waxbay xalisaa maado kasta waxbay xalisaa haddii baabuurku kaa banjaro gaarigaa banjaray boolashii aad ka bixisay 3 boolasha 4 waa dhumeen ciiday ku dhumeen ka fakir ardayga adna afakar sidee loo xalisan karaa lugtaan wixeedii waa la waayay magaaladaad wacaysaa oo la hadlaysaa leedahay hala ii soo oo ma lugaha kale min halka furatid oo ku xirtid lugaha kale min halka fur problemkaadan xaliso soo ma xalisan karno problemkeena xalisan haddii shay ka mida la waayo waxa aan rabnay inaan annaga xalinaa la rabaa waxyaalaha ardadeenna ka maqan waxaa ka mid a mushkiladda inay xalistaan xisaabta maxaa adkeeyey sababto ah suuqa markay taallo waxay u taagan tahay mushkilad xallin dadka dhamaan suuqa jooga mushkiladay xalinayaan waxaasaan gatay mas'aladu waa ardaygu wuxuu bartay keliya qaabka oo wuxuu bartay qalin ahaan looga shaqeeyo laakiin suuqa marka la geeyo waxaa isku da wuxuu leeyahay mas'alo waa adag tahay macallin mas'alada asalka shayga waa mas'alo soo ma saas asalka shayga waa mas'alada inuu mas'alada fahamsan waa inuu problemkiisa xalisan karaa